munaasabad ballaadhan oo lagu soo afjaray colaad in badan ragaadisay deegaanka Ceelafweyn iyo deegaano hoos yimaada ayaa maanta ka qabsantay degmada Ceelafweyn waxaana ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland boqorro salaadiin cuqaal ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf tiro badan ugu horeyntii waxa halkaas laga akhriyay cirdigii la xalaashaday maray labada beelood qodobka koowaad waxa weeyaan iscafin iyo toobadkeen maadaama colaadda labada beelood dhex martay ay ahayd mid ku salaysan qabiil qodobka labaad ee heshiiska waa nabadgelyada iyo wada noolaanshaha waxay labada beelood ugu baaqayaan beelaha kale ee degan deegaanka Ceelafweyn cafis nabad iyo wada noolaansho labada beelood waxay isla qaateen in wixii dhib ah ee beelaha kale ee deegaanka ka dhex dhaca ay ka ahaadaan wanaagna ay kaga shaqeeyaan isla markaana aanay ka gelin wax hiil ah cid kasta oo dhib geysata oo baxsata waxa loo qabanayaa ehelkiisa iyo qoyskiisa dhammaantood oo ay ugu horeeyaan aabihii hooyadii xaaskiisa ama xaasaskiisa caruurtiisa iyo ciddii kale looga maarmi waayo dhanka kalena waxa halkaasi ka hadlay salaadiin cuqaal waayeel boqorro oo ka xog waramay ahmiyadda nabadgelyadu leedahay soo dhaweeyay heshiiska nabadeed ee beelaha degmada Ceelafweyn ee halkaasi ku gaadheen booyay darays nabad bay gaadheen ilaahay waxaan ka baryayaa nabadaasi mid saldhigta inay noqoto go'aamada horta la akhriyay waa go'aamada lagu soo qoranay markii hore go'aamada la qori jiray nolol dhibi jiray go'aamada ku dhaqma haddaan doonanago iska yar uurka ka diidan baa go'aamada nolol dhibi jiray kuwan maanta la soo qoray annaga soo qoranay annagana dhaqan gelinayna dawladda waxaan ku codsanaynaa wixii aan markaa ka dacwoonay ama aan markaa ka codsanay nala qabta deena nala qabtaan waxaan nagu taageeraysaan oo insha Allah aan noogu ducaynaysaan nabadda aanu xidhnay beelaha walaalaha ee deegaanka nabadaasi halka hoose ka soo xidhanto labadii raasi ay ka bilaabantay baan sida la sheegay ay ka bilaabantay wixii kale waxna kala gaareen arintoodu way noo taallaa hadalkayga murtidiisu wuxuu ku dhammaa warqadii la akhriyay iyo go'aamadooda waanu isla qaadanay balan ilaahay iyo wacadna aanu ku galnay inaanu fulino sidaa u fulino ciddii ka hor timaada annagoo isku mid ah oo aan reeraysnayn cid kastana waxaan u sheegaynaa maanta oo beelaha ka mid ah go'aankaa ciddii ka hor timaada ilaahay hortiisaanu taagannahay siday yihiin baanu u fulin waxaan leeyahay markaa ilaaliya oo dar ilaahay ilaahna wadin arkaa waayo wax walba nabadgelyada ay ku xidhan yihiin waa halkii ay ka soo bilaabantay rabshadu cid walba waa gaadhay meel walba waa gaadhay maanta haddaan labadiinni raasisu timaadeen oo tidhaahdeen nabad baanu gaadhnay waa idinku soo dhaweynaynaa waxaa kaloo aan runtii mahad u celinayaa aan la koobi karin ilaahay mahadiisa ka sokow sidii horeba loo yidhi labadan beelood oo xaqiiqdii halkii ay lahayd maanta ilaahay ku alhaamiyey oo aad iyo aad farxad weyn iyo waxaynu ku faraxno oo aad mooddo inay ijaabadii tahay maxay ahayday dhowrka bilood u fadhiyey maxay ahayday ku gunaanaday sharafta iyo maamuuska aad baan u bogaadinayaa nabadda dhallinyarada hirgelin karta sidaa aa u soo dhisteen ee u hirgeliseen u adkaya kii isku kiindirayay baa cadow leedihiin qabta odayga markaa ficilka raacisaan tirsada ficil haddaan waayo hay tirsanina waxaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceergaabo wasiirada wasaaradaha maaliyadda qorsheynta qaranka dhalinyarada iyo ciyaaraha warfaafinta ganacsiga horumarinta jidadka iyo siyaasi Cali Waran Cadde oo dhammaantoodba si isku mid ah u soo dhaweeyay nabadgelyada ka islaaxday degmada Ceelafweyn ilaahay maalintii dambaysan naga aqbasho nooga dhig ilaahay colaadda nagu soo celin rabbiyo ilaahay saasaynu weydiisanayna maalmo badan baynu soo joognay oo dhibaato aynu ka hadlaynay maanta waxaynu ka haraynaa amade ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu siyaadiyo waxaan idin leeyahay ducada dambe si ay idinku hirgalaan wax wariba duca badan baa laydin soo duceeyey ducadaas yaa la beenaynayna ducadaas dhab ha noqoto marka ilaahay mahadi maanta aad iyo aad baan ugu gaar ahaan ugu faraxsanahay waxaa kaloo xusin karaa waxaan malaa wasiirkii ugu faraha badnaa saaxiibaday ninkii ugu badnaa gobolka yimaada inta colaadaasi jirtay marka alxamdulillah maanta waxaan rajaynayaa nabadda la xidhay inay noqon doonto mid si guud Soomaaliland ay wada farxaan
si gaarana haddaanu nahay anigu wasaaradda iyo hay-adda horumarinta waddooyinku waan ugu faraxsannahay maanta waa maalin weyn oo waxaan dareemaa arrin ka soo unkantay dareen dhallinyaro iyaa meesha taalla maanta sidii la sheegay dhallinyaradu waxay dareentay waxa meesha ka dhacay culayskiisa waxa weeye dhallinyarada waxaan ka filayaa horta aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin intii idinka aqbashayna aad iyo aad bay u mahadsan tahay waa maalin ilaahay aynu ka rajaynayno go'aammada halkan laga akhriyey inuu inoo aqbalo go'aammadaas oo ah go'aammo waxna ay kuwii hore ahaayeen ayadaaddoodii iyo in sidoodii loo hirgeliyo waxna ay yihiin kuwa cusub kobigii xukuumaddu waana soo gaadhay waanuna haynaa waanuna ku hawlgelaynaa waxyaabaha annaga waajibaadka nala saaray aad baan ugu hawlgelaynaa waxay maanta u muuqataa maalin runtii ummadda reer somalilan geeska gees ay soo dhowaynayaan waxaan xusuustaa iyada oo qof kasta oo somalilanna meel kastoo aad joogto iyo goob kastoo aad joogto marka ceelaf weyn la soo qaado ma waxbaa lagu dilay miyay isku noqdeen kelmadda ah ayaa waxay ahayd halhays waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu ina ka aqbalo ducadeenna oo ay maanta noqoto ceelaf weyn farxaddeedu ay maanta bilaabmato maanta iyo maalmo hore dhulku aad buu u kala qurux badan yahay waxaan garanayaa degmadan oo dagaal ka jiro dagaal sokeeye ka jiro xun oo dhulku uu abaari yahay oo col iyo abaari ka taagan tahay oo dadku doonaya inay kala hagaagaan oo xoolihii iyo ishinkii ay ku bixin lahayn magta aad mooddo qaarkood inay noqdeen sida geelu geriga u ekaaday wax qoor dheer oo dhabarkiisu simaya ilaa dabada oo reerna waayey wuxuu tolkii la hor tago iyadoo colaaddina socoto taas waxay ahayd calaamadihii abaaraha ee aynu soo marray ee aad soo dhadhamiseen ishaadka ay soo may jirin waxaan doonaya halkan inaan uga mahad celiyo oo u duceeyo intii ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey arrinkan inay ka shaqeeyaan baaraka allaahu fiikum jazaakum allaahu khayran waxaan kaloo halkan uga ducaynayaa intii ku garab gashay intii taageertay intii fududaysay iyo intii samirtayba waan idin ducaynaynaa colaad iyo nabad wax siman ma aha nabaddu waa nolol colaaddu waa burbur colaaddaa dhacday ceelaf weyn wax badan bay ku weyday dad baa aakhiradoodii ku waayey naf baa la waayey duunyaa la waayey wada noolaashaan la waayey wax wada qabsi baa la waayey gacal baa la waayey wax badan bayay ceelaf weyn ay ku weyday colaadda insha allah biidnillahi alkariim shirkan wuxuu noqon doonaa shirkii ugu dambeeyey ee noocan oo kale ah ee nabad soo xidhi aan isugu nimaadno insha allah nabaddu waxay noqon doontaa mid had iyo jeerba xidhanba cabdiraxmaan maxamed xidig telefishinka Ariel ceelaf weyn.